السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتنا maanta muuqaalkeena wuxuu ku saabsan yahay filim Indonesian oo ka hadlayo wiil aad u qurux badan daawo oo iska taxadar qoyska Maas waxay ahaayeen dad qurux badan ilaa iyo 7 jeel dad badan ayaa ka heleen sababtuna waxay tahay in ay qurux badan yihiin taa beddelkeedana waxay ku heleen magac iyo maal inanka ugu weyn waxaa lagu magacaabaa Okis waa nin caan ka ah barta internetka asagoo haysto malaayiin followers sababtuna waa in uu qurux badan yahay aabaha waxaa lagu magacaabaa Bakar waxa uu ahaa shabeelnaagood ka hor inta uusan guursan hooyadood sidoo kale hooyada waa mid qurxoon ayada oo ka buuxdo calaamadaha quruxda lagu tilmaamo Kulin waa jilaaga filimka waana kan ugu da'da yar uguna quruxda badan qoyska waxay ku caanbaxeen in ay yihiin dad qurxoon wayna la qabsadeen marka laga reebo inanka Kulin kaasi oo ku dhib qabo quruxdiisa xad-dhaafka awgeed dumarka qaar ayaa u waasho taa awgeed Kulin waa mid ka dheeraada nool walbaba dumarka waxa uu iska ilaaliyaa in uu banaanka u baxo sidoo kalena guriga ayuu wax ku bartaa Kulin ma haysto asxaab kale marka laga reebo kalluunkan yar ee quraarada ku jiro waqtigiisa inta badan turub ayuu iska ciyaaraa halka qoyskooda ay ka fiirsadaan kaamirad CCTV Okis oo ah walaalka weyn wuxuu mar walba isku dayaa in uu walaalkiisa yara ku qanciyo in uu gabdhaha la sheekaysto si uu lacag uga helo halka Kulin uu sheegay in uu doonayo gabar ku jeclaata shakhsiyadiisa laakiin aanan ku jeclaan quruxda wajigiisa kadib marka uu Kulin guriga ugu caajisay qoyskiisa waxay soo dejiyeen qorshe inuu haysto dhaqaale burbur aysan awoodinna in ay daboolaan waxbarashada gurigiisa si uu iskuulka u aado uuna bulshada u dhex galo qorshihii ayaa hirgalay subaxiina waxaa lagu qanciyay Kulin inuu aado iskoolka masterka soo socdo qoyskiisa ayaa farxeen laakiin wuxuu shuruud ku xiray in la geeyo iskuul ay inimada oo kaliya dhigtaan maalmo kadib Kulin ayaa subaxiisa ugu horeysa iskuulka aaday walaalkiis Okis ayaa dejiyay laakiin Kulin ayaa diiday inuu iska saaro koofiyada madaxa u saaran waxaana uu doorbiday inuu maalintii oo dhan inuu xirto si uu mashquulka uga yaraado laakiin taa beddelkeeda ayaa dhacday oo dadkii waxay la yaabeen inankan koofiyada mootada iskoolka la soo galay Kulin wuxuu fadhiistay safka dambe ee iskoolka macallimadda markii ay fasalka soo gashay iyada xitaa waxay la yaabtay inankan koofiyada wato waxayna ku amartay in uu iska siibo koofiyada kadib marka uu iska qaaday macallimaddii ayaa suuxday isbitaalkana loola cararay sankana dhiig ayay ka keentay Kulin ayaa ka soo cararay iskoolka isagoo xaafadda aaday laakiin waxaa jalaafto u tigay wiilkii foodada badnaa ee Sidi iyo kooxdiisa wayna soo afduubteen waxayna ka codsadeen in gabar dhigto iskoolka in uu nambarkeeda ka soo qaado ayagoo 3 sano isku celiyay fasalka afaraad si ay u helaan nambarka gabadhaasi oo lagu magacaabo Amanda laakiin gabadhaas waxay ka aqbashaa oo kaliya inamada qurxoon waxayna ka codsadeen in uu nambarkeeda u soo qaado waxayna shaqadaas u xil saarteen inaan lagu magacaabo Kibo Kulin ayaa ku dacweeyay kooxdii maamulka iskoolka asaga oo Kibo la socdo laakiin madaxa iskoolka waxa uu ka warwalsan yahay inankiisa Sidi oo 3 sano dhex fadhiyay fasalka afaraad si uu u helo nambarka gabadhaas Amanda lagu magacaabo madaxa iskoolkana wuxuu ka amray in uu sameeyo waxa lagu amray galabtii xigtay Kulin iyo Kibo waxay go'aansadeen in ay shaqada soo gabagabeeyaan maalinta xigta subaxii xigtay marka uu yimid Kulin iskoolka gabdhaha ayaa waxay carfiyeen joogitaanka inan cusub waxa ayna ku amreen Kulin in uu koofiyada iska qaado marka uu iska qaaday Kulin koofidii qarax dhacay oo kale waxaa gilgilmay iskoolkii oo dhan saacado yar kadib warbaahinta ayaa soo tabisay iskool ay gabdhihii waasheen kadib markii ay eegeen inan qurxoon
kuulinna waxaa loo aqoonsaday inuu yahay inan quruxdiisa ay halaag keento. Inanta uu ku shidan iskoolka oo lagu magacaabo Amanda ayaa waxay aragtay warka ka soo baxayo Kuulin. Durbadiiba waxaa soo jiiday Kuulin, waxayna go'aansatay in ay soo jiidato. Warkii marka uu faafay, gabdho badan ayaa isku soo xoomay gurigii qoyska Maas. Qoyska waxay bilaabeen in ay lacag ka qaadaan si ay gabdhaha guriga u soo eegaan. Kuulin wuxuu dareemay in qoyskiisa ay ku gabadfaleen. Marka ay soo waceen, moobilkii ayuu ku damiyey. Waxa uuna diiday inuu guriga yimaado, waxaana uu fuulay fooqa sare ee guriga asagoo iska qarinayo gabdhihii tirada badnaayeen. Si la yaab leh ayay gabar gadaashiis u ka soo baxday, waxayna ka codsatay inuu ka soo dego fooqa sare. Kuulin ayaa ka helay gabadhii. Waxyar kadib waxa uu u wacay Kiibo si uu u geeyo gurigiisa. Ayeeyadiisna ayaa ku tiri Kuulin inuu joogi karo gurigan inta uu doono. Kuulin wuxuu ogaaday in Kiibo uu yahay saaxiibkiisa dhabta ah, waxayna go'aansadeen in ay turub isla ciyaaraan. Maalintii xigtay waxay bilaabeen in iskoolkii ay ku laabtaan ay gabdhaha joogeen. Inta ay iskoolka joogeen, waxay sidoo kale la kulmeen gabadha lagu magacaabo Amanda. Kuulin ayaa ka codsaday nambarkeeda si uu u geeyo inankii CD ah ay u soo dirsaday, laakiin markii ay ka diiday way iska baxeen. Kadibna Amanda sanka ayay dhiig ka keentay. Kuulin waxaa ku soo xoomay gabdhihii iskoolka dhiganayeen. Iyan kadibba say iskula joogeen Kiibo iyo Kuulin, waxay noqdeen saaxiibo laf iyo maqaar oo kale ah. Maalintii xigtay, Kiibo iyo Kuulin waxay isku raaceen meel kubad lagu ciyaaro si uu Kuulin saaxiibtiisa uga soo kulmo lagu magacaabo Reere. Marka ay ciyaarta dhamaaday, Kuulin waxa uu aqoonsaday gabadhii Reere ahayd oo ka shaqaynayso dukaan yar. Waxa uu bilaabay inuu si xoog u eego. Kadibna Kiibo ayaa yimaaday, isagoo u sheegay in gabadhan Reere ay tahay saaxiibtiis. Kuulin ayaa sidoo kale wuxuu ogaaday in gabadhan Reere ay isjecel yihiin saaxiibkiisa Kiibo. Maalintii xigtay, waxa uu la kulmay walaalkiis Okis si uu garab ugu weydiisto si uu u heli lahaa gabadhaasi Reere. Walaalkiis ayaa farxad dartiis la ooyay, maadaama Kuulin uu ahaa nin weligiisa gabdhaha ka cabsoodo. Kadib Kuulin waxa uu walaalkiisa ka qortay ashyaa hadduu sameeyo uu ku soo jiidan karo gabadha Reere. Iyaan kadib Amanda ayaa u timid wiilkii Kuulin ahaa, waxayna u dhiibtay warqad casuumaad ah oo dhalashadeeda. Sidoo kale waxay hadiyaed ahaan ugu keentay taleefan, waxayna ku wada kulmeen xafladii dhalashada Amanda. Kadib markuu la kulmay Reere, wuxuu ka codsaday. Kuulin ayaa Reere weydiiyey in ay jeceshahay, laakiin Reere ayaa waxay sheegtay inaysan jeclayn Kuulin. Maalintii xigtay, Kuulin ayaa wacay Amanda, waxaana uu ka codsaday in ay garab istaagto, wayna ka aqbashay. Maalintii xigtay, dadkii ayaa isugu yimaaday in ay ka qayb galaan xafladda dhalashada Amanda. Amanda waxay gees ula baxday inankii Kiibo ahaa. Reere ayaa waxay aragtay Amanda oo shuminayso saaxiibkeeda Kiibo ahaa, ayadoo qalbi jabsan ayay carartay. Asagoo arrintaas ka faa'iidaysanayo, Kuulin ayaa wuxuu ka daba orday, waxaana uu u sheegtay jaceylkiisa. Ka diiday inankii Kuulin ahaa, qorshihiisana waa uu ka fashilmay. Kooxdii foodada badneed ayaa waxa ay karbaasheen inankii Kiibo ahaa, maadaama gabadhii ay raadinayeen ee Amanda ay shumisay. Kuulin ayaa wuxuu guri keenay Kiibo oo dhaawac ah. Kadib habeenkii marka uu seexday, Kuulin waxa uu garwaaqsaday in uu qalad weyn ka galay saaxiibkiisa Kiibo, waxaana uu go'aansaday in uu cafis weydiisto. Maalintii xigtay, waxay bilaabeen in ay turub isla ciyaaraan, laakiin kadib markii ay dheeleen turubkii, Kuulin ayaa waxa uu sheegay in qorshahaasi uu ahaa mid uu asaga soo maleegay. Kiibo ayaa argagaxay, waxaana uu isdhahay saaxiibkaaga Kuulin ahaa waa uu ku khiyaamay. Ugu dambeyntii, Kiibo ayaa wuxuu ku amray Kuulin inuu gurigiisa ka baxo. Ayada oo roob da'ayso, Kuulin ayaa wuxuu ka soo tagay saaxiibkiisa Kiibo.
ugu dambeyntii gurigiisa ayuu ku soo laabtay, qoyskiisana ayaa soo dhoweeyey. Qoyskiisa ayaa zaid u farxay, laakiin taa beddelkeeda Kulin waa mid qalbi jabay. Saaxiibkiisa Kiibo ahaana waa ay kala go'een. Hooyadiisa ayaa zaid u ka walaacday xaaladda inankeeda Kulin ahaa. Habeen habeenada ka mid ah ayaa waxay u keentay hadiyad qaali ah oo uu jeclaa Kulin, waxayna siisay dhalo ay ku jiraan kalluunkiisa uu jeclaa. Waxayna u sheegtay haddii uu dhibsado iskoolka in uu guriga wax ku baran karo. Kulin ayaa qorshahaasi soo dhoweeyey. Maalintii xigtana sidoo kale waxa uu tagay saaxiibkiisa Kiibo ahaa si uu cafis u weydiisto, laakiin durbadiiba waa uu ka daba adeegay ninkii Kiibo ahaa, waa uuna cafiyey Kulin. Iyaan kadib waxay ku wada kulmeen meel xaflad ah. Kiibo saaxiibtiisa waxay noqotay Rere, halka Kulinna ay noqotay Amanda, halkii wiilkii Sidi ahaa ee ciyaal foodada ahaa uu xanaaqay. Daawaday muuqaalkeena meeshaan ayuu ku egyahay. Haddii aad ku wareertay magacyada ka'da ah sida Kulin, Kiibo, waxaan kaa codsan lahaa in aad like saarto, maadaama sidoo kale wareerkaas aan kula qabo.